kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey wakhtiyadan oo kala bogeena YouTube-ka Diblomacy Media aad ka daawataan. Qodobada aan idiin hayo waxaa ugu doorka roon iska hormaadka xooggan ee dhex marayo ciidanka Israa'iil iyo sidoo kale ciidanka Xisbullah. Iiraan oo xirtay basaasiin la shaqeynayay dowladaha reer galbeedka sheegtayna inay gaartay xaruntii tiknoolajiyadda ciidanka booliiska Israa'iil. Afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan oo sheegay bariga dhexe sida uu ekaan doono dagaalka kadib aan kula wadaago macluumaad Cali Rajani ku saabsan haddii eebbaweyne uu raalli ka noqdo. Waa habeen ay soo gelayso Arbaca 17 bisha 3 ee Maarso 2026. Ku soo dhawaada wararkaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Waxaan ku horeynayaa saaxiibayaal waxyar dalkaasi Nigeria. Wararka ka imaanaya magaalada Maiduguri oo dalka Nigeria ka tirsan ayaa sheegaya in 23 ruux ay dhinteen, 100 kaleetana dhaawacay ay soo gaareen kadib markii weerar uu ka dhacay magaaladani oo ah caasimadda gobolka Borno. Waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah weeraradii ugu adkaa ee sanadihii ugu dambeeyay ka dhacay magaaladan. Mas'uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in qaraxani sida la sheegay uu isku soo xiray ruux, isla markaana ma jirto cid sheegatay ilaa hadda mas'uuliyadda. Nigeria marka la joogo kooxda Boko Haram ayaa ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee dowladda ka soo horjeeda isla markaana weeraro ka fuliya magaaladan iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalkaasi Nigeria. Dhinaca kale ayaan u weecanayaa Israa'iil iyo Xisbullah maanta waxaa dhex maray mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa, iyadoo ciidanka Israa'iil ay sheegeen in weer dhanka dhulka ah ay bilaabeen ayaa haddana waxaa la diiwaangelinayaa in dagaalkii ugu cuslaa maanta uu ka dhacay deegaanada ku yaala dhanka xadka. Si gaar ahaaneed waxaa lagu waramayaa Israa'iil inay bartilmaameysatay meel u dhow xarumo caafimaad oo dadka deegaanka inta badan ay isku baxnaanin jireen oo dhaca koonfurta dalkaasi Lubnaan. Ciidanka amniga ee dowladda Lubnaan dhankooda waxay sheegeen mid ka mid ah askartooda inuu dhaawac soo gaaray, mid kaleetana sida la sheegay uu geeriyooday kadib markii ciidanka Israa'iil ay duqeeyeen xilli ay ku sugnaayeen ciidankan agagaarka deegaanka Qaaqiyaat la yiraahdo oo xadka dhaca. Waxaana la sheegay in la bartilmaameysaday gaari iyo mooto ciidanka ay ku socdaalayeen, sababtana lama sheegin. Israa'iil ayaa bartilmaameysatay siday sheegtay deegaano dhulka hoostiisa ah, waxaana ay sheegeen inay baqaaro Xisbullah lahayeen inay weerarka ay ku qaadeen, inkastoo markii dambe la sheegay in dagaalka dhanka dhulka uu dhacay. Israa'iil waxay maalinkii shalay sheegtay inay dooneyso inay ballaariso howlgalkeeda dhanka dhulka. Deegaano badan oo dhulka xadka Lubnaan ku yaala ayna sheegeen inay bartilmaameysanayaan. Xisbullah dhankooda war ma aanay soo saarin, laakiin waxay sheegeen iyagana inay weerar ka fuliyeen maantay deegaanada xadka oo ay bartilmaameysadeen goob ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen, sidoo kaleetana gantaalada la hago ay ku burburiyeen xarun ciidanka Israa'iil ay ku lahaayeen xadka. Dagaalka dhanka dhulka waxaa laga baqayaa inuu geysto khasaare ka duwan inta la malaysanayo. Dhanka kaleeto marka hay'adda sirdoonka ee dowladda Iiraan ayaa shaaca ka dhigtay maanta inay gacanta ku dhigeen 10 ruux oo sida la sheegay la shaqeynayay hay'adaha sirdoonka ee reer galbeedka. Macluumaad xasaasi ah ayaa lagu eedeeyay inay gudbinayeen 10 ruux. Sidoo kaleetana waxaa la sheegay inay ka shaqeynayeen sidii weerar looga fulin lahaa waqooyi bari dalkaasi Iiraan gobolada dhaca. Ciidanka booliiska ee dowladda Iiraan ayaa maanta oo Talaado ahayd waxay qaadeen marka hore ama waxay sheegeen in 2 ruux marka hore gacanta lagu dhigay kadib baaritaan lagu sameeyey. Baaritaankaasina uu sababay in la soo qabto 10 kale, kuwaas oo la sheegay inay la shaqeynayeen hay'adaha reer galbeedka ee sirdoonka. Dhinaca kaleeto saaxiibayaal sida telefishinka Al Jazeera uu baahinayo, dowladda Iiraan ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerar ay sheegeen inay ku qaadeen xarun tiknoolajiyadeed oo ciidanka booliiska ee Israa'iil ay lahaayeen. Sidoo kale Iiraan waxay sheegtay inay beegsadeen xarumo dhexe oo hubka lagu farsameynayay oo ciidanka Israa'iil ay lahaayeen, sida wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency ay baahisay. In la beegsaday goobtana waxay ka dhigan tahay khasaare in la gaarsiinayo tiknoolajiyadda Israa'iil. Haddii sheekadan ay dhagowdana waa mid ka mid ah weerarada ugu culus oo Iiraan ay qaaday muddada 18 maalin ee dagaalka uu soconayo. Afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan ayaa dhanka kale maanta warbaahinta la hadlay, waxaana uu soo hadal qaaday sida bariga dhexe uu ekaan doono marka dagaalka uu dhammaado. Wuxuu yiri bariga dhexe wejigiisa isbeddel weyn ayaa ku imaan doonaa, laakiin Mareykanka iyo Israa'iil gebi ahaanba ahdaafta ama ujeedada ay leeyihiin ma gaari doonaan. Dagaalka kadib waxaan ka shaqeyn doonaa buu yiri dhismaha nidaam dowladaha Islaamiga ay ku mideysan yihiin oo guud ahaan gobolka. Waxaan ka wada shaqeyn doonaa dhaqaalaha iyo sidoo kale amniga. Sidaas ayuu bariga dhexe u ekaan doonaa buu yiri, taasoo ka dhigan in dowladaha Islaamka ay iskaashan doonaan, sida afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan uu maanta sheegay. Afhayeenka baarlamaanka dhanka kale wuxuu sheegay
in ciidamada dowladda Iran ay guulo ku dhow yihiin isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay bartilmaameedsadeen xarumo muhiim ah. Haddaba aan kula wadaago macluumaad ku saabsan Cali Larijani oo la yiri waa geeriyooday, hase ahaatee Iran ilaa waqti xaadirkan aanay xaqiijin. Inkastoo Israel ay sheegtay inay dileen Cali Larijani, haddana macluumaad rasmi ah ma xaqiijin. Dhanka dowladda ayaana laga sugayaa. Haddii in ka badan 24 saac ay sheekada aamusnaan ay u ekaatana oo ay raacdo saacado kala gaartan ilaa 48 saac ee soo socota, haddii dowladda Iran ay soo hadlin, waxay u badanaysaa in macluumaadkaasi wax un ay ka jiraan. Laakiin waqtiga ayaa wax walba inoo sheegaya. Cali Larijani marka 20kii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ka mid ahaa ragga ugu awoodda badan dowladda Iran. Wuxuu ka soo jeedaa qoys aad u saameyn badan marka la joogo gudaha dalkaas. Wuxuu horey u soo noqday wasiirka dhaqanka, madaxa warbaahinta qaranka ee dalkaasi Iran, gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Iran. Haddana wuxuu ahaa la taliye sare oo Ayatullaahi Cali Khamenei aad ugu dhowaa. Sidoo kaleetana wuxuu ahaa xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iran. Wuxuu door muhiim ah ku leeyahay wadahadallada hubka nuclear-ka iyo siyaasadda amniga qaranka ee dowladda Iran. Waxaa lagu tilmaamaa maskax siyaasadeed oo aan caadi ahayn, mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu adag, sidoo kaleetana fikrad ahaan aad ugu adag marka la joogo Iran. Maxay ka dhigan tahay marka haddii dilkiisa uu run noqdo? Falanqeeyaashu waxay isku raacsan yihiin in khasaare culus ay tahay, laakiin nidaamka dowladda Iran ma burburayo. Maxaa yeelay nidaamka dowladda Iran ma aha mid shakhsiyadeed ee waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid hayadeed. Waxaana tusaale loo soo qaatay markii hogaamiyihii ugu sarreeyay dowladda Iran meesha uu ka baxay, xaalkii isma bedelin. Waxaana jira dad kale oo si degdeg ah u buuxin karaya haddii booska uu baneeyo, sida horeyba uu u sameeyey mas-uulka ugu sarreeyay ee dowladda Iran. Waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay aad la socotaan. Haddii aad nagu cusub tahay, laagta muuqaalka saar si asxaab badan uu u gaaro. Waa hagaag mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Iran ayaa sheegay in hogaamiyaha cusub ee ugu sarreeya dowladda Iran, Mujtaba Khamenei, gabi ahaan uu diiday dadaalo la doonayay in lagu soo gabagabeeyo dagaalka. Wuxuu ku adkaystay inuu aargudanayo. Sida warbaahinta ay baahinayso, marka Mujtaba Khamenei waxaa lagu waramayaa in uu diiday soo jeedintan oo ka timid qaar ka mid ah dowladaha gobolka, markaasi oo ah in xaaladda la qaboojiyo oo xabad joojin Mareykanka iyo Israel iyo Iranba ay kala seexdaan. Soo jeedintan waxaa Tixraan gaarsiiyey 2 dal oo dhexdhexaadiyaal ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiintan oo warbaahinta laga soo xirtay, kuwaas oo magacooda ka gaabsaday. Khamenei wuxuu qaatay mowqif adag kadib markii kulankiisii ugu horreeyay ee siyaasadda arrimaha dibadda uu kala yeeshay saraakiisha dhanka ammaanka. Waxaana lagu waramayaa argoosi oo keliya inuu doonayo. Marinka Hormuz ayaa weli si weyn u xiran, taasoo saameysay dhaqaalaha dunida. Xulafada Mareykankana waxay diideen codsiga madaxweyne Trump ee ah in dib loo furo marinbiyoodkaasi, iyadoo ciidamo loo soo dirayo. Ciidankaasi oo ka socda dowladaha gaashaanbuurta NATO iyo dowladaha saaxiibka ah Mareykanka. 3 ilawareed ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay 3 maalin ka hor in maamulka madaxweyne Trump uu diiday dadaalo ay sameeyeen xulafada Bariga Dhexe oo la doonayay in lagu bilaabo wadahadal dhanka diblomaasiyadda. Laakiin saacado kadib dowladda Iran ayaa dhankeeda diiday. Dhowr jeer wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran ayaa si cad u sheegay in xilligii wadahadalka aan la joogin, iyaguna aanay diyaar u ahayn inay wada hadlaan. Wararka ugu dambeeya haddii aan kula wadaago, dowladda Iran ayaa lagu waramayaa inay gantaalo culus ay ku garaacday maanta gelinkii dambe qaybo badan oo ka mid ah magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah iyo magaalooyin kale oo ku yaala bartamaha Israa'iil. Wargeyska Haaretz la yiraahdo ayaa baahiyey bamka cluster-ka la yiraahdo ee dowladda Iran inuu ku dhacay ilaa iyo dhowr goobood oo bartamaha Israa'iil ah. Waxaana lagu waramayaa inuu dab isqabsaday xaafado dhowr ah, gawaari badanna ay gubteen. Sidaasi oo kale dowladda Iran ayaa sheegtay in mowjadii 58aad ee ballanqaadka dhabta ah ay maantay ku weerareen gudaha Israa'iil iyagoo adeegsanaya dhowr nooc oo gantaalo ah. Inta badan waxaa la bartilmaameedsaday Nahariya, Beit Shamis, Tel Aviv, galbeedka magaalada Qudus ee dhulka Falastiiniyiinta Israa'iil ay haysato iyo deegaano kale. Waxaa la sheegay gantaalka Qormshahir la yiraahdo iyo gantaalo kale oo culus oo gantaalka Qatar uu ka mid yahay in lagu bartilmaameedsaday deegaanadan aan kula wadaagay, taas oo keentay marka in deegaano badan ay gubtaan. Mas'uuliyiinta dowladda Iran dhankooda waxay sheegeen dagaalka inuu socon doono oo xilligii wadahadalka aan la joogin. Amiirka dowladda Qatar iyo boqorka dalka Jordan ayaa telefoonka ku wada hadlay maantay, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen in xaaladda amniga ee dowladaha Khaliijka iyo sidii dagaalka loo soo gabagabeyn lahaa iyo doorka wadahadal oo ay bixin karayaan. Jordan ayaa ka mid ah dowladaha dhibaatada ugu yar ee soo gaaritay, iyadoo saldhig weyn Mareykanka uu halkaasi ku leeyahay.